السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحابتي قالية أصحابتين قالية سيتيهين أما في عنتيهين من نبات قبتين إلهي إذن كيس ويدي رجينا أما هالكستو أدونك كجوكتان إي سو دواذا خير إي فرحة سو دواذا وماموان إي مركلة إي channel كيني دمرك صوماليات تلوينا ميشان صوغلو تلوين كوكوبان تلواتي إلهي إي دقيستا وحاد نغلا قيب قادن كرتانا نغلا قيب قاتا soo dhawaada welcome maasha allah walaal kalaan ka wadaa war walaashaan waxay tiri ila taliya waxay tiri ilmaa ii joogo guuraan kasoo baxay maraan dheerayn dhowr sano waa maraan dheeraynta waxay tiri guurkeygii hore markuu iga baaba'ay intuuna guurkaan iga baabi'in guur kala iga soo baaba'ay waxaan watay tiri wiilal 3 wiilaan guurkii koowaad ka watay guurkii labaadna ilmihii aan ku dhalay wiilalay u badan yihiin maasha allah marka waxay tiri ilmihii waa waaweynaadeen ilmihiygii baan korsaday waxay tiri ilmihii yaraanaan ku dhalay yaraan zaa'idaan ku dhalay marka aniga ilmihii waa isla wada kornay tiri ilmihii waxay tiri teenage iyo niman waaweyn ay noqdeen ciddii hore waxay tiri waaba wada guursadeenba 20 jir ilaahay guur hore u siiyey waa garanay ciddii dambena waxay tiri waa wada teenage marka waxay tiri maadaama aan ilmihii aan ka daba ordaayo qof yarna aan ahay inaan guursadaan jeclaysta shukaansiya ii soo baxay waxay tiri wiilkii markaa is shukaansanay waa ninkii markaa is shukaansanay ninkii waxaan iriyay tiri walaalow aniga ma rabo in maaragtay aad isheegto okay waa laisku keena ogaanaa waalidkayga way ogaanayaan ehelkayga in yaroo kooban laakiin aniga ma rabo in lay ogaado waxay tiri ilmihii ayaan maalin hadal u kormaray ku dhahaya ciyaalow haddaa iska guursada maxaa ka qabtiin waa la wada booday tiri maya hooyo maya cirkaa la wada maray tiri ku yaryara waaba qaraxmeenba hooyo wadayo see hooyo maxaad samaynaysaa kuwii waaweyn hooyo caadi iska dhigaa la yiri tiri mid iyo laba qosol iyo waxooga baxay hooyo boos kuma banaana nin meeshaan meetingkii dhammaa ilmihii ayagoo surprise aanan midba midka kale ogeyn aan meetingkii aan u diyaariyey kulli waxaa la yiri hooyo naga daanin intaasa nooga ekaato waxay tiri aniguna nafaan leeyahay waqti badan ay guriga ka maqan yihiin waxbarasho jiraan nafaan leeyahay qofan kaloon la hadlaan rabaa inaan u xamaalo inaan weelka u dhaqo inaan dharka u feereeyo inaan guriga u tirtiro waxaan ahayn miya aniga nololaan leeyahay maxaa dhacay ilmahayga waa jeclahay laakiin aabayaashood badanay yeesheen hadda maanaa waxa yarnaanaa nin iga tegayo gabar kale guursoo danihiisa raacday calaahi kulli xaal waxay tiri maadaama aan arkay ilmihii nabiga qaraaxmayaan aan waxaan ku yiri tiri walaalow arrinkaas inaa horta guurka official noqdo maba dhaceedo haddaa rabtid hawadaa laga dhammaynaa soomaaliya dadka noo jooga isku kaaya hagaajina si yaroo private oo labada family qof walba la yiraahdo afkaaga qabso arrinkaana dhammee kabacdina islaan xaafadood iyo sheegin waa la isku afkartay whatever makes you happy oo yiri hafi bala waa la yiri ninka gurigoo degan yahay haddee markay ilmaheeda iskoolaadkii waxa ku kala ogaato gurigu faaruqo ayay baaburkeeda ku dhacdaa ninkii marka waxaas waa anfici waayeen xin wuxuu la galay ilmihii inuu official sanka ka geliyo oo ilmihii loo sheego maamada in la qabo anna waxaan rabay tiri markaan muddo ani asiga isfahano inaan ilmaha tartiib u dhaho saasoo guurkayga ku dhacay intaasna waa xiriirkaasaa jiro bal aniga hooyadoodiina aniga u sheegto wuu diiday wuxuu yiri ilaa waa in ilmihii loo sheegaa ilmo maa ka boqee ilmaha xeetaa ku cabiidsanaa ilmihii oo iska dhex arkay inuu iisoo guuro ila degana waa niyeysiiyey tiri calaahi kulli xaal markay saas dhacdo waxaan iri tiri walaalo horta aan ku sheegaa ilmaha intaa ka leexatid saan hadda aan nahay haddaadan ku joogaynin walaalo bal ii fududee awalba hoosaadi heede
hoos iigu fudee waaba kasii qaraacma meelmaha daraadooda ay burburinaysa meelmaha daraadood maxay kugu akhriyeen ma adaa dhala mase ayagaa ku dhala odaga cirku kusoo dhacay nafta ilaa iga caddaatay ee lasoo taliya anigana ma rabiyey tiri ilmahaas maanta waxaan arkay inaan saan habi ku nahay waa wiilal nin hadduu soo dhex galo oo weliba ninkii ay diideen asooba guurka dhicin inay sii qaracmaan waxay tiri ilmahaagu marbay qajilaan ay guur kale kula rabin anigu waxaan dareemay tiri ilmihii inaynan rabin nin inuu soo dhex galo marka maba rabi ilmahaygan ku saydahay hadday iga yeelayaan meeshiisa asoo ii jooga inay fahmaan in lay qabo waxawaaye waxay u arkeen inuu ciriiri gelina ciriirina ma rabi ilmaha wax iga geliyo aniga naftirkayga ani ayagaa isbaranay meeshaan waxawaaye ilmihii waaye gambada xaggan ku tuuraa koob shaaxay siiyo yaa markaan imaado lugaha ii riixriixo anigii baaba gurigan iyo ilmaha nin inuu soo dhex istaaga maanta diyaaro ma ihi waana u sheegay maandhow waxaan idhi aniga ilmana diyaar uma ihi intuu ilaahay sii kara ilaahay ha siiyo aniga kuwaanaan kusoo tiiri tacabeelay ciddaanu waa dhaqan tahay iska guurso qof kale aday ku jirtaa hadda qabadaa rabtid aniga iyo adigii nikaaxayna markaa ka wada hadalnana mininkaaga joog meel kale isku qaabilna gurigan yarka ee afarta cunugoo ku jirto amaasii adii calaa kulli xaal ninkii buuqo furay haf iyo balow intuu yiri baladka dhan mariye anaa qabo maama heblaayo warkiisoo u socday wiilashii waaweynaa loo geeyey waa lay shiriyey anaa dadka shiri jire maama soo fariisaa layiri arrinkaas maxaa ka jiro meeshii ay fiicnaad inaan ka dhaho haa waa jiraa ma jirtaa la soo booday tiri waxaas wax ka jiro malaha walaalayaalow ilmihii difaacay galeen ninkaa been buu sheegaya warkii horay gadaala u socsocday inkirmaadan ku jiiday hadal afkayga waaba kasoo bixi waayaba garow ii dhigtay waalidiintii shalay arrimaheena gashay xitaa ninkaa i karaysid waa ninkii buuqa ugu furay waxaana ka filanayn inuu sameeyey ilmihii uu soo jeediyey ilmihii waxayba taagiin hooyadeen been ma sheegayso wax qabana maleh waana lee qabaa asigana wuxuu taagan yahay been baa sheegaysaa anaa inkirta ilmaha daraadoodaad ii bahdishay waa inaad sheegtaa inaan ku qabo anna waxaanba taaganaya tiri maba fahmayne bal ii fududee warqadeydii la isii guurkan cirkaha maro afaarahan hayga xirmaan ilmahaana ammaansa asna wuxuuba taagan yahay hawaanba seed ilmaha u maqashaa hawaan anigana waxaan taaganahay maxaa ilmahan ku daba dhige gurigaaga iska fadhidaye halkaas iskagama aragtee barqa maraq fuuqsanaye maxaa ku galay maxay tahay ilmahan iyo gurigan iyo waxaana daba taagan tahay ma suurtoobayso walaalow aniga iima suurtoobayso inaan iska soo akacno oo xaas isku noqono ma rabo anaan barrabinbo wadwadkaagii dhardhaqowgaagii cunto kariskaagii waxaaga anaan barrabin iga tag shaqo iyo waxbarasho iyo adduunyo iyo ilmo cunto u karsaan ka daba ordooyaa waana kuu sheegay shukaansigeeni ma raba full time husband gabadhu marka waxay leedahay ma anaa gal daran aniga hadda waxaan bataaganahay furo dadkii oo dhanna waa i fahmeynay tiri inaan ninkaan ka boodsanahay asna xarigaan u jaray tiri telefoonka blogaan ka saartay tiri is arag dambe ma jiro wax dambe ma jiraan qamqam maxaa sameeyaa walaasha wallaahi waa cad adag yaa kolley tala waxaa kasii kara waa kasoo siiye laakiin adikana tala idinka rabtaa gabdha ilmuhu markay waaweynaadaan nin lama soo dhexgeli karo marbay diidaan marbay boodaan canugu intuu yaryaho wax aqbali karaa ama wax la marsii karaa canugoo gar iyo gumud lahoo asba reer leh laga yaaba inuu ku yidhaha hooyo ma dhaceedo naga dhaaf ma rabno hadduu aabbahood jooga is okay aabbo kale nin kaleoo meelaha mirmirqlayna marbay diidaan maray okay yihiin waxba kugu darsanaynin oo lala noolaan karaa laga soo akici karaa waa jirtaa laakiin maray ku leeyihiin hooyo maya ilmahaaga hadday kuu diidaa inaad guursatid maxaa sameynee hadday ilmihii ay kaa haadaan wax problem kaa bartaan stress noqdaan ma rabtid hooyo rabta male cunugeedoo dagaalama cunugeedoo buuq fura ilmuhuba way maseeraan adeerkiina waa maseere
wuxuuba taagan yahay soo canug ilmo yar yaroo yaan yaawe say wax u diidi karaan anaa ii sheegay miya ilmahayga i diiday wuu nin soomaaliyeed wuuba aqbali waayeba sorry ilmihiaan ku rabini marka aniga ilmahan la jiraa ya hooyada nin uma diidani nolol laakiin wadaadkiina wax maqlay ahayd wadaadkiina gurigiisa iska joogo oo halkaas ku sugta bilcaantiisa ee ahayd aniga aadaan u qabaa ilmaha inay raaxaystaan meelaha iska maraan cuntadooda anytime cunaan yaa wiila waxaa laga yaaba inuu soo kaco 2 subaxnimo oo kobcaana kasoo doonta fridjka wadaad hadduu kuu joogo xulli cunugaa suqsuqleyna heeta qaaraa banooni kusoo daaha iska imaanaa late haye gabar walaa fooneeya wax iska qaadanaysa saq dhexo biri exaami wax kuule oo dhehaysa timahayguule ma samaysano habeenkii late wax shiishiilayso ama timo samaysanayso nin kuu joogo guriga wuu kontaroolaa wuu soo kacaa ilmihii waraysana haye labaa murmayso ilmahayga aamusiyo ku leeyahay dagaalaa tv dhanaa bash dhulka lagu siinaa jeebkaaga oo noqona haddana waad gedi kun wax asiga meeshaan oo qaraamaa waa tv la jibi gurigii uu ka laxamona oday weyn waa taqaanin haye hawa cunugaaga wax walbuu kaa khalqaalsana hoy gaari iigat hoy gaari ibar hoyasaan wiilal la wadaa laguu keenaa guriga dhan wada wiilal wada kaba uraa wax adigaaba kuwaagii raxan wiilal yihiin maasha allah guriga dhan qaateen haye ninkii too istaaga gabaraha masquul isku soo xiraysa wiil kalaa meel isku soo xiraya jikadiyaa looga horeeya guriga ilmo 2 bahaa lagu dhaxaaya ma soconaysa ninka oo iska daaya xaafadda oday edab loo ilmaha cuntada u kala guraa hadduu yahay dhahay anaa dharkooda u feereyna anaa wax walba u qabana anaa kii daahsan baaburka kula carara meel geyna hadduu leeyahay contracti la kala galaa laakiin hadduu ku leeyahay guriga markaa imaado anaa ka madaxeyna anaa cidda dhan xukuma dee ma soconayso badidoodana cidda inay xukumaanay rabaan ani waxaan aaminsanahay wuxuu dhulka iskula dhacayaa ciddaas aan maamulo ma soconayso saaxiib aniga ma qabo ninkaan wuu yaraa ilmihii kusoo dhex galay sidii bahdii hore oo kale ninkii dhex galay yaraan hadduu ninka kusoo dhex galo aabahoodu waa caanahoodii uu soo gadooyaa iskoolka uu kala geenooyaa cuntada uu kala waxeynooyaa wiilkuu timaha kasoo jaraa gabadhou meel kala geynaa wiilka kaloo meel geynaa banooniguu kasoo kaxaynaa waa aabahoodu wuu ku tiirta cabeele waa aabba adeer laakiin niman waaweynoo markay guriga soo galaan dhaha qaar xaas wataan ay kula joogaysa iyadii ilmaheedii dhowr beri big family waa big family hawaaye meel ugama banaana xajimco ismaqiiqaa haddana ilmihii baaba diiday haddii xataa lagu dhaxaysan lahay gabar soojkeeda ma diidee ilmihii yaa diiday marka gabadha maxaa kula soo tali laheedeen aniga waxaa aaminsanahay maamada sidii rabto waa u sheeg waxaan ku yidhi ilmahaagii saxsan yaa xilligan oo kale ninku dababoodo ma ka bixi kartid romantic toosa ma la jili karo xilligan oo kale waxbaa ka khaldan sheekadan isma raacayso wadaadka guri hadduuba leeha gurigiisa ha joogo asna wuxuu rabaa oo u bukaa maamadiisa sawjadiisa inuu kasoo akaco ilmaha wax maamula ama ilmaha wax diidaana mudaaharaad uu ka taagan yahay marka hadda waxay tiri dalqadii wuu isku dhejinooyaa nabaduu rabaa anigana waxay tiri niyaddii haba iga dhimatay niyaddii bash ee iga tiri contractigii horaana si fiican u dhuudhuujinay tiri wuxuu tila waalwaalaa waa ii gabayey tiri aniga waa ii gabayey contractigii horaa iga waxaysmeed marka gabadhaa maxaa dhihi laheedeen khayr allah isii usoo duceeya ilmaheedana waxa waaye ilaahay ha u barakeeyo ilaahay baa iskale ilmuhu teenage markay yihiin ay dad waaweyn yihiin ay wax garanayaan qaar xaasas yihiin hooyadoo guursanayso maray diidaan maray caroodaan aabbahaaba loo diidaa sometimes dumarka badan oo guursanaa laha aabba xaq maana maalin kasta gabar ku dheeshid because wiilashaadoo waaweyn oo shaqaysto haddaad gabar furayso meherkeedii aad ka qaadaysaa leeda warkeena meheraa ligu leeyahay mid baa cararaysa haye maalin kastama meherdadood bay bixi karaan waa maya gabar iyo dhisow leeyahay lacag keena intaa hoo kunoo hiri ka siinaa hadhow ii beelow leeyahay marbay ilmuhu diidaan reerkan iska soo socdo adigoo cimriye amaa ku jirta aan kugu aqbalnood ku dhex nooshaa waa maya maray diidaan marka baayadan lasoo taliya insha allah amuurta khayr allaha ka dhigo aniga kolley taladii waa kasoo siiye talawaatii ilaahay waxaana qabaa ilmaha inay helaan waqti ay ku aqbalaan arrinkan
inay tartiib ilmaheeda uga dhamaysato iyaduna asiga iska dhuudhuujiso oo hadday noqoto xataa ilmuhu inay aqbalaan inuuna ilmahaas dhex boodin ilaa lama xukumi karo waa waaweynaadeen wax allaala waxay rabaan waa in la siiya ilmaha waddamadan lagu haayo lacagay rabaan moobeelay rabaan moobeel qaali oo kunii hodhodho ay rabaan kabii karinay rabaan aday kaa kor saxanaan adiga hooyadii aad tahay jirkaa kuma cusleeyo maanta markay wax rabaan hadday soo rooraan hooyaa taa waad siini waad u aroosini ayuu taadu geli xoolahaaga dhanaad ku beelaysaa xooggaadaad ku beelaysaa laakiin nin markuu ku qabo ha shaqaysay oo ku leeyahay canugaagii aad rabtay inaad meel ka soo saarto ha shaqaysto kabacdina ha guursado ku leeyahay adigana waxaa bartaa arooska dhinaa u dabarto u howl fududayso ciyow aroosisa cunuga marka nin wuu ku talinaa wuxuu naag u guursadaba inuu u taliyo wuxuu hadda isla qallajinaa wuxuu rabaa inuu cidda dhex galo oo rooti jaam ku noqdo oo hadhowna hadduu doono bilaabo maya hadduu hadda haa yeela soo gurigiisa kumau nagaadeen oo haya macaanti intuu yidhahdo meeshaasoo kuma sugan iyada maxaa ka quseeya ilmahan u kala teelteelay maxaa ka quseeya meeshii gabdhaha jooga wiilalaa jooga teenage waa mideeda kale hooyada way ogaan kartaa ilmaheeda inay kulul yihiin ilmo iska masaakiin oo qaboobaa jiro 10 jeer haddii lagu furo aan danka lahayn maba ogabo maba ku hayaba kuleylii qabow iyo ilmo kulul oo cirka ka soo dhaca haye kuyoo qaangaaray ka war caadiya kugu talinayaan ma dhaxaysay kulli haddii kale ayaga kaa niyad jabaa nin dadoo niyad jaba ilmahaagoo niyad jabana aniga waxaa laga qaatay ninka dadoo niyad jabo ilmahayga allah yaa ka allah ma rabi inay niyad jabaan waxay raalli ka yihiin aan sameynaa maxaa dhacay marka aniga waxaan kusoo sibooday inay ilmaha maqasho wadaadkaane kulley niyadeedina iska dhisato asnaa saa saaxiga keena raalli ha ku noqdo gurigiisa in loogu imaado xulu soo ordaa dad cimriya meesha fadhiyo dad cimriya oo canaananaha meesha fadhiyo midda kale waa in loo sheega ninka xooggaygii xoolahaygaba ayagaa leh aqligayga ayagaa leh ilaahay ka sakow adiga xataa waa inaad u biirisaa waa inaad kabtaa hadhahay adoo halkaas iga jooga xataa waa inaad i caawisaa saan ilmaha u kabo haddaad raalli ku tahay haddii kale iga leexaniyo shaqaale sharaflaanaye meeshaana kala boodayahay yaa maasha allah ilmaheeda allaha u xifdiyo abaayadan waxaa dhihi laheedeen waa kaa adinkana ogaadahe hadday garoob yar meesha fadhido ilmaha intay mujuq yihiin yaryaryihiin carar ayna guurso minay kugu qawaaroobaan hadhow waxaa lagu dhihi karaa hooyo wadayo dhiweyn ma rabno nin hadama ayagaa guursa lahaa waa may ma rabno because ninka gurigooduu soo galaa musqushooduu galaa jikadooduu galaa haye adigoo hadduu doono kula hadlaa adigaa isku dhacaysiin haddaa doontiin adigoo ku kuurkuuraa hadda nin ma joogi kare nin soomaalinimaba ugu jiraba hooyadood wax kuuraa ma rabaan damiiray leeyihiin ninka dadooday kugu bugayaan ka war dhibaato waa marka adeer wuxuu ku badbaadi karaa inuu baari yahay waxaa kale ku fiican adeer inuu waddan kale iska jiro ama inuu ayagoo mujuqyaa soo dhex galo laakiin qawaaraan maanta soo galaa boorsadeeda soo dhex dhiganaa waxawaaye dhifii qaliilay ku shaqaysaa sheekadaas ilmahoo iska masaakiin oo iska baariyaala waxaas ba aan dhugu lahayn laakiin reer kulkulul oo macal aabahooda xataa yah warka keendhaha oday kale may u daahayaan mideeda kale markaad muddo ilmahaaga la qaadato ood saaxiib la tahay ood dhex boodid ood u shaqaysid oo xooggaaga macaansadaan xoolahaada macaansadaan waxawaa ilmaha ma rabaan wax soo dhex galo nin haddoo yimaado hooyadooda xoogaa waqtigaa lala qaybsanaa haddana xoolahaa lala qaybsanaa niman badanoo waxaa jiro markay yaa xaajiyadda xoogaa uruuridaba qaado beeraa noo gelinaya dhulaa noo gelinaya baaburaa noo gelinaya xoogaa maamada xaalafiyo ilmuhuna ma rabaan hadday cidu xaalafinayso hooyadood ayaga inay xaalufsadaanay rabaan been maa laysku sheegaa maama 30,000 aruurisa oo sawjkeeda gacanta uga shubto Soomaaliya adoo bilcaan kale ku guursadaa jirto weydii soo socotaa qisadeeda marka 30,000 40,000 50,000 100,000 ay hirig leeyihiin marka ninkaas maqiiqaayo ani waxaan dhihi lahaa waxbaa wado akaasoo aka caleemo wada ah sheekada yaa haddii meel laga soo kacayo ay faa'iido leedahay mininkiisa ka soo kaco hadhaay haddaba minan ma laho ma meel cidlaha u joogaa waa may midda kale nin Soomaali waa inuu fahmaa hooyada ilmaheeda way xukumi karaan markay noqoto guurguur ha hooyada biri waa lala guursan karaa waa maseeri kartaa waa la dhibi karaa qarashkaa laga xalafi karaa
waa la kuurkuuri karaa waa lagu qayli karaa ma xamili kartid hooyadaahoo ninu canaanana waa ciil waa ciil haye haddana haddaad dhalinyaro tahay maba isceli kartidbo laba feer haddaad wadaadka ku bujisay inta gooso ku jirto sidii guluusidii bannaanka usoo daadanaya waa dhibaato waa la kala xaliyaa wiilasha haddii roorooyin weliba uguma sii jiraan haye marka maamada waa gabar yar ilmaha yaraanay ku dhashay say sheegatay da'weyn ma aha maasha allah laakiin arrinkaas kala soo taliya kowdhaha annaga dhanna cashiray noo tahay waxaa waaye maxaa ka qabtaa inuu wadaadkii ku guursado haddii da'du ay iska roon tahay ilmuhu rooroon yihiin gabadhii xaasa haddaanan canu kuu joogin dhib ma leh sidii gabar yaraa lagula aqalqalaa because canu kuuma joogo laakiin haddii ilmo kuu joogaan kolow hal canu ku yahay wuu kaa diidi karaa ma rabiyo ku dhihi karaa hooyo inuu nin soo dhex galo canuga iyo ninkane aniga canugaan siinayaa fursadda koobaad simple miskiinkan weligiis ma maseerin ama miskiinadan ilmahan ma maseerin uqdaduma taaban gurigooda laguma ciilin maxaa dhahay hanaga jooga ninka meeshiisa khayr allah siiye guurka diyaar laakiin mininkaaga joog maxaa dhahay reer walba waa si igu aqbalsaan igu aqbal meeqaad tiraahdo hooyaan soo fiirinaa ilmaha ku tiraahdo waa ishayn karaan labaadad waaweyn oo shaqaystay qaarna reeraahe hooyaan soo fiirinaa intii ilaa jaf la yidhaaha ninkii la aada bil iyo laba lala soo qaataa xaa kugu dhacay aloo soo noqdaa ilmihi dhaca haye waxaas waxaa u yeelaysaa qalbigooda ilaaline marka ilmaha qalbigooda hala ilaaliyo wadaadkan hadduu nabad wax ku waayo daqeelii buq wax ku keeni maa ilmihiisa maxaa ku wata ka dhac hadda waa kana uu sii durjiyey heer waxaa dhacday la inkiro asoo nooloo joogo reera layidhaha war naga tag ninna ma naqaane hooye waxaas ma jiraan wejigaad ilmahaada ku tiri waxaas ma jiraan berisaad ku leeda hooye naga daaya been baa sheegay see ku dhehe ma dhihi kartid marka gabadhan lasoo taliya insha allah talawaatii ilaahe aniga waa soo sheekaysan waa soo faraxna waa soo qosolna adikay talada kale idinka rabtaa waxaa dhihi laheedeen mase ka gaashaa ma nahay hadday da'doo durugta la guursanaayo ilmana meesha joogaan seed waxyeeli ilmihuna diidaan ilmahaaga marbay qaracmaan hooyooyinkana waa u kala nugul yihiin ilmaha amba gabadhaasaan la mid ahay ilmuhu hadday ii diidaan ninkaa fudud gabdho waxaa jira mar dambaba aan guursanbo oo dhaho iga wat da'daan maan ku gaaray madax bannaan haa ilmahayga ma guursadeen reere ma leeyin ilma ma dhaleen haa iga wat laakiin marmaraad yar tahay waxaba yaraan ku wada dhacdaa yaraanaa ku dhashay ilmahaagana yaraanay ku guursadeen adigoo gabar yar ahaad noqotay yami maami maxaa dhacay marka haddii markaas wadaad oo iskeeno ilmihii aan u bandhigo ee ilmihii igu boodaana wadaadkayga raalli hoobaan leeh haddaanse ismaqiijiyo qisadanoo kale igu dhacdo exactly waxay fashaan fali lahaa wiilal waaweyn oo reero leh oo la yidhi hooyadaha la qabaa oo hooyadeen lama qabee naga taga yidhi oo aniga ii keenay oo yidhi hooyo iga soo fakato yidhi hooyo waxma ma jiraan waa beentood ninkaa asigaa qatar isgeliy shib intuu iska yidhaahdo hadduu jaceylkaas leh wada lahaa wandhe iyadaa dhila war ducadeeda ma rabtiin nin baa i qabay ogaada nin baa i qabo ducadeyda haddaa rabtiin warkan waa xiranya saasaan dhihi lahayn moogta ilmaha sankaan ka gelin lahayn meesha hawsha laakiin hadda maxaasan laga geliya asiga xaafadaha meeraystee xasoo kale waa laga fiicanya tala xumaa la yidhaahdaa laakiin wixii dhacwaa dhaceene bal gabadha ayla soo taliya talawaatii ilaahay adinkana ka gaashaanta haddii la guursanaana ilmaha la wargeliyo hadday boodaan ilmuhuna waxaad yeeleedeen adinkaa taqaaniin wallahi iisi maha ilmahaaga waaweyn guurso gabdho badanaa noo joogo oo guurkii xoogaha ilmihii booda hadday doonaan ama ilmihii nin lama dhex keeni karo ayagii baaba isqa qabsanaa see ninku dhex keeni guriga waa rigaysteen ilaa ay ayaga kaa wada calfeeyaan ay nolol raacsadaan ee calaf ma guursan kartid markaasna waaba gabowday maxaad ka gaartaa marka ayeeye noqotid maxaa ka gaartaa sheekada intay yaryar yihiin alaqaad amuurta khayr allaha ka dhigee allaha sahla amuuraha baa la soo taliyo talawaatii ilaahay sheekooyin badan ay noo soo socdo insha allah amuurta khayr allaha nooga dhigo soo dhawaada cafiya caafimaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu